السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada shabakadeena loo yaqaan kobciya software alaabad ka barateen cilmiye kala duwan oo ku saabsan dhinaca tiknoolajiyada IT-ga, dhinaca ganacsiga iyo dhinaca dhaqaalahaba iyo dhinaca accounting-ba. Course-kan waa course cusub insha Allah noo bilaami doona maanta. Course-kan wuxuu ka hadlayaa barnaamijka loo yaqaano SPSS ee wax lagu analyze gareeyo. Course-kan waxa soo taminaya macalinka channel-ka loo yaqaano Xuseen Saciid Warsame. asxaabay sad ula socotaan course-kan wuxuu noo noqonayaa course hordhaca oo ku saabsanaan doona barnaamijka loo yaqaano SPSS oo loo soo gaabiyay Statistical Package for Social Science. waa barnaamij aad kaaga caawinaya marka daatada ama xogta aad soo ururisid la fagurideeda ka caawinaya ama analysis waxa loo yaqaan afka qalaad aad bay kaaga caawinaysaa. barnaamijka waxa sameeyay shirkadda loo yaqaano Itel Intel baan leeyahay shirkadda Mareykanka ku taala Intel markay aragtay baahida loo qabo barnaamij wax lagu analyze karo. marka barnaamijkan waxa loo adeegsadaa badanaaba questionnaire-ka gaar ahaan questionnaire-ka loo yaqaano closed-ended questions badanaaba open-ku waa adagtahay in la analyze karo. marka insha Allah tusaalayaal fudud iyo features-ka uu leeyahay wax kasta uu barnaamijkani ka kooban yahay sida ugu fudud uguna macquulsan ayaan u dhiganaa inagoo eegayna bulshada Soomaaliyeed in ay waxtar iyo anfac u yeelato. marka insha Allah cashirka ku xiga wuxuu noqon doonaa in aanu dhex galo barnaamijkii iyo qaabku u shaqeyn doono. asxaabi ah ma ogaanina inaad share gareysaan casharada kobciya software maadaama ay nagaga baxdo juhdi iyo dadaal fara badan. إن شاء الله أصحابته وحكرتينا لايك يا شير يا سبسكرايب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.